waxa isniinta Britola dalka Ingiriiska ka bilaabmi doona dhageysiga dacwadda ay Manchester City ka gudbisay horyaalka Premier League taasoo ku saabsan lacagaha ay kooxuhu ku khasiraan suuqa kala iibsiga iyo arrimooda kale. tilaabadan ay qaada kooxda Pep Guardiola oo sanadkan markeedii afraad oo xiriir ah qaaday horyaalka Premier League taasoo aan dhicin 136 sanadood oo la ciyaaraya horyaalkaasi ayaa kala qaybisay kooxaha horyaalka Ingiriiska waxay saxaafadda Ingiriisku ku tilmaantay ama ku tibixday dagaal sokeeye. warqadka Mail Sport ayaa waxa uu qoray in kooxaha Chelsea, Aston Villa iyo Newcastle ay la jiraan kooxda Manchester City kuwaasoo City la qaba in la xooro sharciga ku aadan xadidaadda lacagaha ay milkiilayaashu ku shubi karaan qasnadaha kooxaha. Chelsea ayaana la sheegay in EPL gacanta u gelisay bayaan ku saabsan aragtideeda ku aadan xeerkan loo yaqaano Associated Party Transactions ama APT halka ninka wax kale kooxda Aston Villa oo ah bilyaneer masaari ah oo la yiraahdo Nassif Sawiris oo aad ugu dhow gudoomiyaha kooxda City ee Khaldoon Al-Mubarak uu horaanba dood uga qabay xadidaadda lagu sameeyay inta ay la eg tahay lacagaha ay ku khasiri karaan kooxahooda. Newcastle oo ka gaabsatay codayntii ugu dambeysay ee kooxaha EPL ee ka dhanka ah Man City ayaa iyadna la aaminsan yahay inay ku saftahay maadaama ay iska leeyihiin dowladda Sacuudiga isla markaana ay heshiis dhex ah kula jiraan shirkadda Sacuudiga ah ee dhacdooyinka agaasinta ee loo yaqaano Sela taasoo la macno ah in haddii City ay guuleysato ay iyadna guuleysatay kooxda St James's Park. si kastaba inta u dhaxaysa 10 ilaa 12 koox oo heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ah ayaa ka soo horjeeda kooxahan waana sababta loogu tilmaamay dagaal sokeeye. waana kooxaha kuwa ugu fara dheer ee ilaa imika la magacaabay kamid ah Man United, Arsenal, Fulham, Wolves, Brighton iyo kooxda Tottenham. waliba qaarkood waxa ay sheegaan inay ku marag furi doonaan kooxda Man City halka qaar kalena ay waraaqo ku soo gudbiyaan bayaankooda. kooxda City oo wajahaysa 115 eedood oo ku aadan inay ku tumatay xeerka qarash garaynta ee u degsan Premier League ayaa dacwad rasmi ah ka gudbisay EPL laftiisa waxaana doonayaan in la xooro dhamaanba xeerka loo yaqaano APT ee la hirgeliyay bisha November 2021 isla markii Sacuudigu ay iibsadeen kooxda Newcastle United waxaana haddii ay waliba ku guuleystaan dacwadaas ay dalban doonaan magdhow waxaana isniinta soo bandhigi doonaan dukumiinti ka kooban 165 bog oo ay ku sheegayaan in cunsuriyad iyo wax ay ku sheegeen diktatoriyadda inta badan ay kala kulmeen kooxaha Premier League taasoo ka dhan ah milkiilayaasha Carbeed ee kooxaha Newcastle iyo Man City. sida ku cad xeerka APT ee City diidan tahay waxa kooxda loo ogol yahay inay khasaarto 105 milyan oo geni oo qura muddo 3 sanadood ah taasoo ka dhigan waxaan sida uga badnayn 30 milyan oo geniga sterling ah fasal ciyaareedkii. City ayaana loo haystaa in ay qarisay ama cayilisay lacag kaga timid dhinacyo saddexaad sida milkiilayaashooda oo ay ku tilmaantay in ay yihiin eedeh ama sponsorship. waxaana dhageysiga dacwadooda oo bilaabmi doona bisha November ee sanadkan ay socon doontaa ilaa 6 toddobaad sida uu qoray wargeyska The Times. dhanka kale madaxda Premier League ayaa waxaa looga fadhiyaa inay soo bandhigaan emailada iyo sidoo kale fariimaha WhatsApp iyo qoraalada caadiga ah ee ku saabsan kooxda Manchester City ka hor inta aan la bilaabin dhageysiga dacwadan ka kooban 115 eedood. Richard Masters oo madaxa Premier League iyo ninkii xilkan kaga horeeyay ee Richard Scudamore ayaa kamid ah ragga looga fadhiyo in ay fariimaha soo bandhigaan kuwaasoo dibna ugu noqonaya wax kasta oo lagu soo qaaday kooxda Man City ilaa 2009. dhanka kale waxaa qoraale laga sameeyay dacwadan lama filaanka ah ee ay City ku soo oogtay EPL. Oliver Holt oo maqaal dheer ku qoray warqadka afka dheer ee Daily Mail ayaa waxa uu sheegay in tilaabada City ay burburin karto horyaalka Ingiriiska oo ay ka bilaabayso dood u dhiganta midda European Super League ee haysata UEFA. waxaanu ku eedeeyay inay wadaan waxbadsi iyo hunguri dheeraad maadaama ay kooxda iska leeyihiin amiiro aan warkooda war la kor saari jirin sida uu qabo. waxaanu jumlo kamid ah qoraalkiisa ku yiri haddii ay City ku guuleysato dacwadan xarunta Premier League waa in laga dhigaa garoonka Al-Ittihad taasoo ula jeedo in marka ay horyaalka Ingiriiska xukunto kooxda Manchester City. sidoo kale macalinka iyo kabtanka hore ee kooxda Liverpool ee isla dalka Ingiriiska ayaa isla Daily Mail waxa uu ku qoray qoraal dheer oo ka dhan ah kooxda Manchester City. haddii ay Man City ku guuleysato hardanka sharciga ah ee ka dhanka ah Premier League waxay taasi soo afjari doontaa adeega Premier League oo noqon doona horyaal ay laba koox ay ku guuleysato ayuu yiri Graham Sounds oo maqaal dheer ku qoray column uu ku leeyahay Daily Mail. haddii Man City iyo Newcastle laga furo katiinada maaliyadeed ee ku xiran waxay yeelan doonaan tashiilaad ay ugu muruq sheegtaan qof kasta waxayna noqon doontaa bilowga dhamaadka Premier League oo imika ah horyaal hardan badani uu ka jiro dadkuna way ka xiisa dhici doonaan ayuu raaciyay Graham Sounds. Maxamed Xaaji, Hadal Sama TV.